qof walba ogaaw haddaad maqan tahay ogaaw haddaad maqan tahay idaacadda ka dhageyso haddaad joogtana qaada arrintaas waxaan leenahay ha laga laabto dambigaas yaan la gelin haddii la galana kas cad in loo galay ha la ogaado gudoomiyaha degmada Garijir ee gobolka Hiiraan Mudane Sakariya Cabdi Faarax oo ay weheliyaan xogayaha degmada agaasimaha arrimaha bulshada iyo mas'uuliyiin kale oo dawladeed ayaa gaaray deegaanka Qabooley halkaas oo ay kulamo kula qaateen dadka deegaanka waxaana kulankan lagu lafaguriyay sidii loo joojin lahaa jarista dhirta iyadoo oo laga mamnuucay deegaankan duugista dhuxusha jaridda qoryaha qalalan waxaana laga soo saaray ganaxyo waaweyn oo cidii ku dhacda lagu qaadi doono sharciga maamulka degmada Garijir ayaa maamul cusub iyo xubno la shaqeynaya u magacaabay dadka deegaankan Qabooley Maxamed Maxamuud Nuure gudoomiye Maxamed Jaamac Warsame gudoomiye ku-xigeen Ahmed Salaad Guuleed xubin Ahmed Cabdi Afduub xubin Ahmed Xiire Maxamuud xubin maamulkaas anaguna waan aqoonsanay hadaanan maamulka degmada Garijireed waan la shaqeyn doonaa hadii Allah idmo isagana bulshadaanu ay soo wakiilatay anagana ayaga noo wakiila dhanka kale qaar ka mid ah guddiga loo doortay inay la shaqeeyaan maamulka Garijir ayaa iyaguna ballan qaaday inay si daacad ah ugu shaqeyn doonaan dadka deegaanka waxa ayna baaq u direen dadka wali ku howlan jarista dhuxusha waxaan u ballan qaadnay sida ay noo doorteen inaan u shaqeyno si cadaalad ah inaan u shaqeyno qofna inaanan ka shaqeyn qofna aanan gaar ugu shaqeyn si cadaalad ah oo Ilaahay nagu og yahay inaan u shaqeynayno ayaan maaragtay aan ballan qaadaynaa waxa weeye qof walba ogaaw galabta waa ogeysiis amnigiiyaa jooga shacabkiiyaa jooga annaga waana la doortay qofna xiga male qofaan soo dhaweysayna male faldambiyeedka laga soo dacwooday oo deegaankaasu leeyahay oo dhirtu leedahay oo wax walba ah inaan qarinayn ha la ogaado qof walba ogaaw haddaad maqan tahay ogaaw haddaad maqan tahay idaacadda ka dhageyso haddaad joogtana qaada arrintaas waxaan leenahay ha laga laabto dambigaas yaan la gelin haddii la galana kas cad in loo galay ha la ogaado ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Garijir Sakariya Cabdi Faarax ayaa sheegay in cidii qodobadan lagu heshiiyo ku dhacda ay la kulmi doonto ciqaab adag isla markaana sharciga la horgeyn doono galabtay kulankeenu wuxuu daaranaa in laga ballamo in sidii looga hortagi lahaa inaysan soo noqon caqabadahaas noocaas ah iyo inaan deegaankan aan dhir dambe laga jarin dhuxul dambe laga samaynin qori dambe oo qalan laga qaadanin mid qoyanna aan la taabanin bulshada deegaanka iyo maamulku waxay ka ballameentaa waxaan rajaynayaa in ballantaas la ballamay maamulka deegaanka iyo bulshada deegaanka iyo midka degmada iyo laamaha amnigu ay ku ballameen inay dhaqan gali doonto inay hirgeli doonto Cabdinuur Ciise Qalamad warbaahinta qaranka Garijir